Audio Jungle. السلام عليكم barnaamijkan kaga hadlaynay taariikh xukuumeedka dalkaasi Masar qaybtii koobaad waxay noo joogtay Abbas waxa lagu dilay shirqoolkii koobaad qiyo Ismaaciil waa la eriyay oo meesha ayuu ka baxay Boqor Faaruq oo isaguna dalkaasi xukumayay intayna noqon Masar jamhuuriyadda isagana waa la eriyay qaybtiina labaadna waxay ku bilaabmanaysaa sidan Jamaal Cabdi Naasir madaxweynaha dalkaasi Masar isagana waxa uu dhintay xanuun ku soo boodaha oo la tuhmayo inay sootay sun loo mariyay maqaarka madaxweynaha Anwar Saadaad isagana shirqool ayaa lagu dilay taariikhdu markay 1981 Xusni Mubaarak isagana shacabka ayaa ku geedooday taariikhdu markay 2011 kacdoonkii ku kacrabta ayaa galaaftay kursigiisii madaxweyne Mursi isagana oo ugu dambeeyay afkambi ayaa laga tuuray oo waxaana ka tuuray madaxweynaha iminka haysta Cabdiraxmaan Al-Siisi taariikhdu markay 2012 kadibna Maxamed Mursi wuxuu ku geeriyooday gudaha xabsi uu ku xirnaa sidaa darteed xukunka dalkaasi kama marnayn dil shirqool iyo dhibaatayn madaxda ugu sareysa iyo afkambi kadib ku dhawaaqistii jamhuuriyadda dalkaasi Masar waxa soo maray xukunkeeda 8 madaxweyne oo laba ku meel gaar ahaayeen talada dalkaasi waxa ugu horeeyay Maxamed Najiib waxa ku xigay Jamaal Cabdi Naasir waxa ku xigay Anwar Saadaad Suufi Abu Talib Xusni Mubaarak Maxamed Mursi iyo Adli Mansuur iyo madaxweynaha haadan talada dalka Masar haya Cabdiraxmaan Al-Siisi madaxweynayaasha soo maray dalkaasi Masar intooda ugu badan waxay ku yimaadeen afkambi iyo xoog balse casharka ugu weyn ee laga baran karo ayaa nidaamka xukuumadda dalkaasi waa in ay dhamaantood ahaayeen haba ugu badnaadeen dictatoriyin ama kaligood taliyayaal balse ay ahaayeen wadaniyiin eega ugu dambeyn danta dalka iyo maslaxadiisa taasi ayaana ah sababta dalkaasi uu ilaa hadda u dhisan yahay uga nabad galay dagaal sokeeye iyo faqri sidoo kalena shacabka dalkaasi iyo bulshada ku dhaqan dalkaasi Masar ayaa la mid ah dadka kale ee caalamka xagga tiknoolajiyada xagga aqoonta xagga horumarinta iyo caafimaadka intaba si kastaba ha ahaatee dalkaasi ma jiro madaxweyne ku mahad sheeganaya intii uu talada dalkaasi hayay balse shacabka dalkaasi ayaa ah kuwa ilbixina kuwaas oo aan waxba ka sugin adeegyada dawladda haday tahay waxbarashada caafimaadka iyo dhammaan adeegyada aasaasiga ah waxa kaalin weyn ka qaata shacabka kuwaas oo ah markasta matoorka daaran kaas oo dhaqaajiya dalkaasi halka ay noo joogto qaybtii ugu dambeysay ee kaga hadlaynay taariikh xukuumadda dalkaasi Masar daawade subscribe like noosar mahadsanid